سلام أخياري وعابي مركلي برامج كرجدي دالنتا ما أنتوا حنقوها يا هديد آدي قالوا ما دام أن كل ترنا بالله ولا بدو كوني لبعض تنكا أن وحندوني هنا نكرو ذاكو تطبق قضب أو هدي راعضو كده ذكرتو هدف إسلام كان واحد ذكرتو قضب كوبات قاضو بقى كفكر واحد أديك أدوني استماع سميسو أما أديك تعشى ما هو قف وقصبيه ما هو أديك أسكو قصبيسي كفكر واحد أديك تعشى نفسيا إنها تسميسو then ku qaado go'aan waxaas sida ku sameeyay waxay kugu saacidaysaa inay ku dhiirigelinaysaa in aad ka in aad ka dhabayso waxaan adiga aad jeceshahay qodobka labaad meel ku qoritaanka meel hadafkaaga waxay si toos ah u galaysaa maskaxdaada waayo wax aad qorto waxa ugu faa'iidada badan ee maskaxda mar walba ku soo laabta meel ku qor dan ku hoos qor sidii aad ku gaar lahayd iyo waqtiga aad gaari lahayd iyo sidii aad ku xaqiijin lahayd inaad gaartay hadafkaaga dan ka fakar markii hadafkaaga aad gaarto sidee ku ogaanaysaa hadafkaaga inaad gaartay markii hadafkan aad gaarto wuxuu ku soo kordhinayaa noloshaada wuxuu ka bedelayaa markii hore iyo markaa hadafka aad gaarto maxaa farqiga u dhaxeeya haddii aad gaarto sidee ugu raaxaysanaysaa sidee dadka uga faa'iideynaysaa macnaha inaad ka fikirta value-ga oo kugu soo kordhinay waayo wax aan faa'iido lahayn ama si aan waxba kugu soo kordhinaynin inaad ku dadaasho maanta dhan macnaha ma kuu samaynayso haddaba ku fakar sidii aad ku xaqiijin lahayd hadafkaaga qodobka saddexaad u sheeg asxaabtaada dadka adiga aad jeceshahay la wadaag waayo waxay ayadana kuu fududaynaysaa in maskaxdaada si fiican ay u qabsato oo aadan iloobin mar kastaana aad ku dhiirato in adiga aad samayso afar kala qaybi hadafkaaga tani waxay gooni u tahay markii aad leedahay hadaf weyn waayo hadaf weyn ma gaari kartid ilaa aad gaarto hadafka yar waayo hadafka yaru waa doontii aad u aadi lahayd hadafkaaga weyn waxaan uga jeedaa markii aad rabto inaad sanadkan bilowdo masterku markaad dhammaydo oo shahaado soo qaadanayso waa hadafka weyn u socoto laakiin doonta ku wadaysa hadafka yar ku wadaya muxuu yahay waa in attendance-ga aad samayso galaaskii waa inaad examkii ka shaqayso waa in aad casharkii diyaariso kuwaas ayaa ah hadafka yar waxaynu ku wadaan hadafka weyn ah oo inaad qalin jabiso dan aqoontaadii aad meel ku mariso shan bilow stepka koowaad waxaa jirta mamahaya dhahaysa 100 miles starts only one step safar 1,000 kilomitir ah wuxuu ka bilowdaa hal step waa in hadda aad ku dhaqaaqdo tilaabadaada koowaad si aad u gaarto hadafka adiga aad leedahay lix keep going hore u soco waa qasab inay ka hor imaanayso caqabado aad u badan markii aad doonayso inaad gaarto hadafkaaga isku day inaad ka gudubto caqabadahaas marka horena aad u diyaar garowdo haddii caqabad badan ay ka hor imaato isku day inaad ka wareegsato oo meel kale oo ka wanaagsan aad u wareejido waxaan uga jeedaa haddii darbi ka hor imaado darbigan aad jibin karto jabi haddii aad jibin weysana isku day inaad ka wareegaysato oo meel kaloo aad mari karto aad gobato weligaa never ever give up toddobo dabaaldeg markii aad gaarto hadafkaaga meel ayaa fariisanaysa dan waxaad ka fikeraysaa waddadii dheereed aad soo martay wixii kugu soo hagaagay iyo wixii kaa soo xumaaday then waxaad u mahad celisaa dadkii ku soo saaciday along the way kadib ka fikir next step maxaan samaynayaa waa maxay go'aanka ii xiga waa maxay programka kaloo ii xiga waan doonayo hadda inaan sameeyo sidaas oo ku wado waxay kuu fududaynaysaa in hadafkaaga aad bilaabato isla markaana aad xaqiijiso hadafkaaga waxayna ku gaarsiinaysaa guusha adiga aad doonayso haddaba la sheergaray asxaabtaada si ayaguna uga faa'iidaan waad mahadsan tahay